Fanaanka Sharma Boy ayaa asxaabtiisa iyo taageerayaashiisa waxa uu ka codsaday in ay u soo duceeyaan xaajadiisa oo uur u qaaday. Kadib waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay inuu noqdo aabbo, taas oo uu tilmaamay in wax lagu farxo ay tahay in adduunka waxa ugu wanaagsan uu yahay in aad ubad hesho. Waxaana taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa uu ka codsaday in ay ugu soo duceeyaan. Haddaba Sharma Boy iyo sidoo kale xaajadiisa Maryam Manka ayaa isku mehersaday magaalada Muqdisho, halkaasi oo taageerayaashiisa iyo asxaabtiisa ay hambalyadu idyartu isqabatay. Haddaba hambalyadan cusub ee hadda loo soo dirayo Sharma Boy iyo xaajadiisa cusub ee Maryam Manka ayaa noqonaysa mid gebi ahaanba ay taageerayaashiisa iyo asxaabtiisu ay hawada ugu soo marinayeen hambalyadaasi, taasoo xaajadiisu waqti xaadirkan ay ilmo ugu sido caloosha Sharma Boy. Sidoo kalena uu sheegay in uu runtii aad ugu faraxsan yahay isaga. Muddooyinkii ugu dambeysay Sharma Boy waxa uu kala daalaa-dhacayay baraha bulshada dagaal toos ah oo uga yimid halkaas iyo ninka lagu magacaabo Daahir Calisow, kuwaas oo taageerayaasha Sharma Boy iyo Daahir Calisow ay ahaayeen kuwo falcelino kala duwan ka sameynaya, kuwaas oo lagu tilmaamay in Sharma Boy uu yahay shakhsi hantay qulubta dhalinyarada, shacabka iyo guud ahaan dadka taageera fanka. Waxaana ay tilmaameen in Daahir Calisow uu yahay shakhsi kusoo duulay yarkaasi dhalinyarada ah ee waqti xaadirkan fankiisa hibadiisa ku jooga. Si walba ha ahaatee, Sharma Boy waqti xaadirkan waxa uu isku diyaarinayaa inuu noqdo aabbo Soomaaliyeed, kaas oo ku faraxsan yahay mar uun inuu arki doono ilmo uu dhalay. Waxaana gebi ahaanba ay ahayd mid ay aad ugu farxeen isaga iyo xaajadiisa Maryam iyo Sharma Boy in waqti xaadirkan ay gabadhiisa caloosha ugu sido ilmaha yar, taas oo uu tilmaamay in uu runtii aad ugu faraxsan yahay dhowaana arki doono isagoo ilmihiisa daadihinaya, sidoo kalena waqti la qaadanaya. Si walba ha ahaatee, fanaaniinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka caanka ah badankoodu waa kuwo mar walba hambalyada ay ilyartu isqabato, haddii ay noqoto mid guuri, haddii ay noqoto mid caruur u dhalata, taas oo runtii ah mid ay kaga duwan yihiin waxyaabaha kale. Waxaana inta badan dhacda in shakhsiyaadka caanka ah ay dhibaato kala soo deristo baraha bulshada, haddii ay noqoto magacooda iyo mansabkooda, taas oo mar kastaba dhibaato kaga timaado taageerayaasha iyo kuwa kasoo horjeedaba. Waxaana muuqatay saacadihii ugu dambeysay hambalyada iyo ducada hawada loogu soo marinayo Maryam Manka iyo sidoo kale Sharma Boy, taas oo dadka asxaabta ah ay ugu duceynayaan in Alle soo kala furto, sidoo kalena uu noqon doono Sharma Boy aabbo, aadna ay ugu faraxsan yihiin.